السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام يا دمان أصحاب تلقان يقدر داونيسا ميل والبوا جوكتان يسولبوا مقالكيجو ومركا يدين سو غاريبا مقال كان waxaan doonayaa inaan kaga hadlo wararkii ugu dambeeyay ee gudaha dalka Mareykanka sida daraadeed ilaa iyo 5 qodob oo kala duwan ayaan doonayaa inaan maqaalkan ku fiiriyo kuwaas oo ah wararkii hadda ugu dambeeyay ee dalkan ka soo baxaya waxyaalaha aan fiirin doono waxa kamid ah xagay marayaan banaanbaxyadii waaweynaa ee ka socday magaalooyinka caasimadaha ah ee dalka Mareykanka waxaan sidoo kale aan doonayaa maqaalkan aan uga hadlo ciidamada ICE oo bilaabay nidaam halistiisa leh oo markaas la doonayo in lagu taraagareeyo dadka ay rabaan in ciidamada ICE ay markaas qabtaan waana arrin saacadii hadda la soo dhaafay ay warbaahimuhu si weyn uga hadlayeen ayaan rabaa maqaalkanaga inaan ku fiiriyo waxaan sidoo kale fiirin doonaa qodobo kale oo waaweyn oo ay ka mid yihiin sida ay u kala taagan yihiin dawladda federaalka ah ee Mareykanka iyo waliba maamulka gobolka Minnesota markii laga hadlayo arinta la xiriira dilkii loo geystay gabadhii dhalinyarada ahayd ee dhawaan lagu toogtay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota marka balaarimaha iyo dhan ayaynu soo xoorin doonaa wararkii ugu dambeeyana halkan ayaynu ku soo gudbin doonaa marka bal soo dhawaada meel walba joogtaan iyo solbo muuqaalkaygu oo marka idin soo gaariyaba taariikhdu waa 11 January markaynu ka hadlayno gudaha dalka Mareykanka waana 12 January markaynu ka hadlayno dhankaas iyo Afrika dalka Mareykanka ayaa waxay hadda u muuqdaan kuwa aan wax isbedel ah laga filaynin marka la fiiriyo talaabooyinka ay qaadayso dawladda federaalka ah ee Mareykanka marka saan idin sheegay bal ilaa iyo 5 qodob ayaynu arrimaha aynu ka fiirin doonaa marka ugu horeysa banaanbaxayaashii waaweynaa ee gudaha dalka Mareykanka ka socday ayaa wali waxay u soconayaan si xawli ah waxayna shacabku u muuqdaan inay markaas soo buux dhaafinayaan goobaha la isugu soo baxayo markii aynu ka hadlayno magaalooyinka waaweyn sida magaalada Minneapolis sida magaalada Washington DC sida magaalada Los Angeles sida magaalada New York iyo waliba sida magaalooyinka Boston iyo Chicago ayaa waxa la arkayaa in saacadii hadda la soo dhaafay ay isugu soo baxeen kumanaan dad ah oo banaanka soo dhoobanaya waxay dadkaas ay ka qaylinayaan ama ay ka banaan baxayaan laba qodob oo kala duwan qodobka ugu horeysa waa in dawladda federaalka ee Mareykanka ay joojiso qorshaha ICE ee markaas lagu qabanayo dadka la sheegay inay dalkan ku joogan sharci darro marka labaadna waxay banaanbaxayaashan dalbanayaan cadaalad u helida gabadhii lagu dilay magaalada Minneapolis asbuucii hadda la soo dhaafay ee Renee Good qaar ka mid ah shacabkan oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa ka muuqata cara xoog leh waxayna ciidamada ICE ay ku tilmaamayaanba inay markaas ay yihiin argagixiso. What we're looking for is to remove the ICE agents that are not following the law. They have not been trained. They are not equipped. They're not like our police officers or our armed forces. ICE is conducting a reign of terror in American cities that is violence against hard-working immigrants and now just American citizens trying to defend people in their community. It's a reign of terror. It's got to stop. banaanbaxayaashan ayaa waxa ka muuqda inay markaas iskala qaybinayaan oo magaalooyinka waaweyn aan soo sheegay iyo kuwa kale oo aan sheeginba inay markaas qaarna ay gelinka hore imaanayaan qaarna ay gelinka dambe ilaa iyo habeenkii ay soconayaan marka way isbedelayaan waxaana arrimahan ka shaqeynaya ururo waaweyn oo markaas ka socda dhanka kooxaha liberaalka ah ama dadka taageersan xisbiga demokraatka la yiraahdo ayaa kamid ah dadka sida weyn hadda hormuudka ugu ah uguna ololeynaya banaanbaxayaashan looga soo horjeedo ciidamada ICE iyo waliba cadaalad u helida gabadhii lagu dilay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota marka banaanbaxayaashu waa kuwa socda soo xogeysanaya oo aan marnaba aan Xuseen lama yaqaan ilaa inta ay banaanbaxayaashan ay sii socon doonaan qodobka labaad ee aan doonayo muuqaalkanaga inaan kaga hadlo ayaa waxay tahay waxa saacadii hadda la soo dhaafay soo xogeysanaya xogta sheegaysa in ciidamada ICE ay doonayaan inay isticmaalaan nidaam cusub oo software ah kaasoo markaa lagu taragaraynayo ama lagu dabagelayo halka ay joogaan dadka la doonayo in la soo qabto ama ha noqdaan dad dalka sharci darro ku jooga ama dad si kale loo doonayo in la qabto ha noqdaan ciidamadaasi waxay heleen baa leeyahay nidaam ay dadka telefoonadooda ay la soconayaan oo lagu taragaraynayo qofkii la doonayo in la qabtana gurigiisa markaas loogu tagi doono
marka waa arrin ay aad uga warramayaan saacadihii la soo dhaafay dadka diidan qorshaha ay ICE ka wadaan gudaha dalka Mareykanka waxayna oga digayaan dadka shacabka ee reer Mareykan laakiin xaaladda say u socota markii la fiiriyo wax walba way isbedeli karayaan marka arrintaas waxaan rabaa inay dadkeenu ay ku baraarugaan isla markaana ay ka warqabaan arrimaha noocaaya oo ay sheegayaan warbaahimaha localka ah ee dalka Mareykanka qodobka saddexaad xogayaha amniga ee dalka Mareykanka haweeneyda magaceeda la yiraahdo Kristi Noem ayaa ku dhawaaqday in ciidamo hor la geyn doono magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ayadoo aynu ogsoonahay in dhawaan la geeyay ilaa 2,000 oo askari haddana waxaa la leeyahay ciidamo hor leh oo boqolaal ah ayaa la geyn doonaa waa tilaabo marka ayaduna muujinaysa in xaaladdu ay ka sii darayso markii laga hadlayo dhanka rabshadaha dhanka qalaasaha iyo waliba dhanka banaanbaxyada in ciidamo hor la keeno ayaa waxay ka dhignaanaysaa in xaaladdu ay ka sii dari doonto sida ay hadda tahay mana muuqato in dawladda federaalka ah ay isbedel ku sameynayso qorshaheeda iyo xataa shacabka qaylinaya ay markaas dhageysanayso 2,000 oo askari oo hore loo geeyay ayaa ilaa hadda waxay u muuqdaan markii laga hadlayo gobolkaasi Minnesota inaysan waxba qabanin bay u muuqdaan in marka lagu soo kordhiyo ayaa marka waxay sii murjinaysaa dhaqdhaqaaqa iyo maxaa la yiraahdaa nolosha gobolkaas dabcan dadkuna way sii mudaharaadi doonaan marka xaaladdu waxay u muuqataa mid ka sii daraysa laakiin ma aha mid ka soo raynaysa ilaa hadda lama sheegin tirada ciidan ee ICE ee gobolkaasi la geyn doono maalmaha soo socda iyo waliba sababta loo geynayo laakiin waxa kaliya ee la fahansan yahay ayaa waxay tahay in ciidamadii hore oo la geeyay aysan qabanin shaqadii markaas loogu talagalay inay qabtaan dadka shacabka ahna waxay u muuqdaan ayaguna inay difaacayaan dadka la sheegay in dalkan ay markaas sharci darro ku joogaan waxaan sidoo kale aan arkaynaa in meelaha qaarkood ay dhacayaan isku dhacyo shacabka iyo ciidamada u dhaxeeya ciidamada la soo badiyo xaaladdu ay ka sii darto ma dil dan baa dhici doona ma gacan qaad baa dhici doona maxay xaaladdu noqon doontaa waa arrimaha isha lagu hayo oo aan la ogeyn wax ka soo bixi doona marka maalmaha fooda nagu soo haya waxa laga filayay ciidamada ICE waa arrin loogu yeeray inay door to door ay markaasi ay garaaci doonaan albaab walbana ay istaagi doonaan iskuna dayi doonaan dadka inay qabtaan ayagoo isticmaalaya nidaam ay ku taragaraynayaan cidii ay doonayaan inay markaasi ay soo xiraan qodobka afraad oo aan doonayo inaan muuqaalkan aan uga hadlo ayaa waxay tahay waxaa taagan kala aragti duwanaansho weyn oo u dhaxaysa dawladda federaalka ah iyo maamulka Minnesota maayirka magaalada Minneapolis oo dhawaan ka hadlay warbaahinta gudaha ee dalka Mareykanka Jacob Frey ayaa wuxuu sheegay inaysan kalsooni ku qabinin baaritaan ay sameeyaan hay'adda FBI da la yiraahdo iyo waliba the Department of Justice ama waaxda cadaaladda dalka Mareykanka labadaas hay'adood ayuu magac dhaba wuxuu yiri wax kalsooni ah oo aynu ku qabno baaritaan ay kaligood sameeyaan ma jirto wuxuu maayirkan uu sheegay inay ayagu u baahan yihiin marka hore inay baaritaan ay sameeyaan waliba mid level state ah mid heer state ah oo aan federaalka marka hore aan gacmaha loo gelinin kiiskan I think that's a fair point to make, and so let's have the investigation in the hands of someone that isn't biased. Let's not have it exclusively run through the FBI at the federal government or the Department of Justice. Let's have it with the Bureau of Criminal Apprehension at the state level. This is an entity that has expertise. They have a long history of investigating cases just like this, and they have. In maamulka magaalada iyo midka gobolkuba ay haystaan dad aqoon u leh baaritaanka horena ay u baari jireen kiisaska noocan oo kale ah oo aan loo baahnayn in markiiba lagula degdego hay'ado uu sheegay inaysan markaas dhexdhexaad ahayn isagoo FBI da iyo ka hadlaya the Department of Justice sidee loogu kalsoonaanayaa buu yiri hay'adaha ay hoos tagaan dawladda markiiba go'aan ka gaartay gabadhii la dilay aydan baaritaan la sameyn Will you accept the results of the FBI investigation, Mayor? You know, if it was an FBI investigation that was done jointly with an investigation from the Bureau of Criminal Apprehension, we could have had some trust that there were entities and individuals at the table that were properly reviewing the evidence. marka codsanayaa oo uu rabaa in baaritaanka laga bilaabo level state oo ayagu ay baaraan la ogaado wixii meesha ka dhacay laakiin dawladda federaalka dhankeeda markii la fiiriyo waxay markiiba ay ku shaabadayeen in gabadhu ay argagixis ahayd askariga ay dil rabtay askarigina uu markaas isdifaaci rabay waxa sidoo kale dawladda federaalka lagu eedeynayaa
inay fakiyeen ninkii dambiga geystay oo markaasi uu ku dhex dhuumaleysanayo gudaha dalka Mareykanka marka waxa si weyn loogu kala taagan yahay sida markaa kiiskaas xasaasiga ah ee buuqa badan abuuray baartaan loogu sameyn lahaa shacabku waxay codsanayaan in ninka la soo qabto cadaalad la horgeeyo dawladda Mareykanka waxay doonaysaa federaalka in ninka la soo qabanin oo uu yahayba nin haliyay ah oo naftiisa difaacay aragtida uu qabo maxaa la yiraahdaa mayorka magaalada Minneapolis waxa ku raacsan xildhibaanada Soomaalida ah Ilhaan Cumar oo ayaduna dhawaan ka soo muuqatay warbaahinta oo ku shaabadaysay dawladda federaalka ee Mareykanka inay markaasi go'aan ka gaareenba ay ka gaareen ay wax baartaan aan la sameeynin isla markaasna aan la qaadan karin bay tiri in la sumcad dilo hooyo saddex anug dhashay oo si bareer ah markaasi loo toogtay. It is not acceptable for Kristi Noem and the president and the vice president to make these kind of judgments without there being a full investigation, even though we can see in the videos that have been produced so far that what they are describing is really not what is taking place. And so if they're saying that we shouldn't believe our eyes, then let the investigation take place before you characterize this mother of three as a domestic terrorist. Prove to us what documentation you have. marka qodobka la xiriira in dawladda federaalku ay go'aan degdeg ka gaartay aydoon sugnin baaritaan ayaa wuxuu u muuqdaa qodob ay dawladda federaalku ay si weyn ugu fashilan tahay warbaahinta oo dhan ay markaasi ay ku shidayso laakiin lama yaqaano waxa xaaladdu ay noqon doonto baaritaankaasi halka ku dhamaan doono iyo waliba kala aragti duwanaanshaha weyn ee maamulka gobolka iyo dawladda federaalka u dhaxeeya halka ku soo dhamaan doona lama yaqaano laakiin wax xiiso taagan oo saacadaha hadda la soo dhaafay si weyn ay warbaahinta uga hadlaysay qodobka ugu dambeeya oo aan rabo inaan shacabka Soomaaliyeed aan la wadaaga ayaa waxay tahay horta wali ma is weydiiseen sababta dadka degan dalkan Mareykanka loogu ogolaaday inay hub haysan karayaan waxa gun right-ka la yiraahdo ama xuquuqda ay dadka reer Mareykan ay xaq u leeyihiin inay hubaysan karaan arintan xagee ka timaaday maxay tahay saameynta ay xaaladda taagan ay ku yeelan karto iyo waliba waxaan waxay ka yimaadeen baan rabaa inaan aragti ka siiyo dadka daawanaya muuqaalkan arintan waa arin aan isleeyahay qof walba oo Soomaali ah oo muuqaalkan daawanaya dalkana degan waa inuu ku baraarugsanaada weeye markii la fiiriyo xaaladda hadda taagan iyo waxyaalaha dalkan markaasi laga fili karayo sababta ugu weyn oo shacabka Mareykan loogu ogolaaday inay hub haysan karaan ayaa waxay tahay waa in ay dawladda federaalka iyo maamulada dalka ka jira aysan kalsooni ka dhaxaynin waa inay maamuladu ka baqayaan in dawladda federaalka ah ay qabsato oo ay xoog ku maamusho ayaa laga cararayaa wana sababta loogu ogolaaday inay muwaadiniintu isdifaaci karaan haddii xaaladdu ay gacanta ka baxdo gumaysigii uu Ingiriisku dalkaani u gumaysan jiray xilligaas oo la sheegay inay xaalado tacaddi ah oo daran ay dalkan ay ka dhaceen wixii intaa ka dambeeyay nidaamkii la dhisay ee federaalka ahaa ayaa marka waxa lagu heshiiyay in cid walba ay hubaysnaato oo qoryaheeda ay haysato si markaa aysan u jirinin cid la qasbi karayo marka dawladda iyo maamuladu kalsooni kama dhaxayso shacabka iyo maamulada naftirkoodana wax kalsooni ka dhaxaysa ma jirto waa sababta qofka gurigiisa cidii ugu soo gashaa xataa hadduu rabo madaxweynaha Mareykanka ha ahaade uu xaq ugu leeyahay inuu isdifaaci karayo waa sababta aynu mar walba u maqalno in qofka property-giisu ay tahay wuxuu xaq u leeyahay inuu ku dagaalami karayo Soomaalida arag markay kooxan cusriga guriga ma ka hadlayaan waa property-ga ma soo gali kartaa ilaa isma arag taleefanka aad gacanta ku haysato waa property-gaaga haddii lagu qabsado waxaad xaq u leedahay isdifaacdo gaariga aad wadato waa property-gaaga marka in dadka la boobo oo hantidooda la qaato oo dhigooda la banaysto oo la dhaco ayaa laga baqayaa dadka dalkan degan ee cadaanka ah markii laga tagay dadkan kale Isbaanishka iyo maxaa la yiraahdaa madowga iyo qolooyinka nagaan immigrantska cusub xataa ayagu isma laha anagu cadaan baan u aragnaa laakiin cadaanka dalkan degan baan shaqo isku lahayn qaar baa Jarmal ah qaar baa maxaa la yiraahdaa British ah oo Ingiriis ah qaar baa Scandinavian ah qaar baa Faransiis ah qaar baa wax kala ah shaqo isku laha markii hore ay dalkan qabsanayeen gooni bay u kala degeen ilaa haddana gobolada arkaysa gooni baa loo kala degan yahay laakiin anagu attention badan ma siino tusaale yar gobolkan hadda ay Soomaalidu ku badan tahay ee Minnesota la yiraahdo dadka ugu badan ee degan ee cadaanka ah waa Jarmal ilaa iyo 40% dadka degan waxa la aaminsan yahay inay Jarmal yihiin
waa sababta markii laga tago magaalooyinka waaweyn ama magaalada caasimadda ee Minneapolis magaalooyinka meelaha kale ee tuulooyinka ah iyo gobolka intiisa kale ay ugu xoogan yihiin xisbigan Republican kala yiraahdo oo ahba de kooxaha cunsuriga ah waa sababta Donald Trump uu ugu arko gobolkaas gobol ka duwan gobolada kale inuu asagu leeyahay cidoodu leeyihiin buu aaminsan yahay waa sababta markii Trump lagu banaan baxayo waa Nazi loo yiraahdo saaway waa Jarmal way laakiin markaad fiiriso magaalada Minneapolis la yiraahdo magaalo dad kala duwan ay degan yihiin madowga degan Soomaaliba degan cadaanka ugu tirada badan ee magaalada degan waa Scandinavian waa Norwegian waa Danish waa noocaas degan madowga ku jirta Soomaaliba ku jirta waa dad marka kala duwan way laakiin cadaanka ugu badan ee magaalada degan ayaa waxaan arkayaa inay yihiin qolinka Scandinavian-ka marka ayagaasan xataa shaqo isku lahayn waxa laga yaabaa qofka Minneapolis degan ama Minnesota degan uu weydiinayo way ku tuulooyinka degan cunsur u yihiin laakiin kuwa caasimadda degan si cunsur u ahayn muhiimaddu waxay tahay isma lehba Scandinavian-ku asaliyan dad wax gumaysan raba ma aha dad inay cadaanka dadka kale ka awood badan yihiin aaminsan ma aha laakiin Jarmalku saas way marka ayagii baa saa u kala degan xal waxaan arkayay qolooyin dhankaas iyo Texas ka banaan baxaya oo dawladda federaalka ciidamada ay isku haya anagu waxaadna moodeen qoladii Minneapolis deganayd ayagoo marka Scandinavian-ka la hadlay marka anagu cadaankaas cadaan ka duwan baan hayb leeyahay marka qoladaas oo kale waa British xoog leh baa ku jira iyo Ingiriis way anagu dagaalameena bay ka wadaan marka dalkan aan deganahay cadaanka degan xaaladihiisa hubka waxa uu yahay sababta hubkan loo haysto inaynu faham ka qaadanaa dadka dhalinyarada aan ku buurinaya wixii aan ka kari karo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh.